kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada aan idin la wadaagi doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo magacaabay xilal magacaabis degdeg ah isagoo fila Soomaaliya oo magacaabay agaasimayaal badan shaqadana ka eriyay kuwii hore u joogay. dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya ahaana hogaamiyay doorashada dalka ka dhacday injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu shaqada ka joojiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisiciid Muuse kaasi oo ahaa gacanta midig ee madaxweyne Farmaajo. Rooble ayaa ninkaas ku eedeeyay musuqmaasuq baaxad weyn leh oo uu kula kacay dowladnimada Soomaaliya. dhinaca kalena Somaliland ayaa waxaa ku dhufatay dabaylo siyaasadeed kuwaasi oo ka bilowday doorashooyinka ka dhici doona bilaha nagu soo aadan. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idin la wadaagi doonaa, laakiinse waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalkan like badan saadhaan, YouTube-kana subscribe si tirahdaan idinkoo muuqaalkan comment iyo like isugu daraya si uu meel fog u gaaro. aanu ku bilownay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu magacaabay agaasimayaal fara badan isagoo maanta soo saaray dikreeto lagu magacaabayo Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa musharax madaxweyne Xasan Sheekh kula tartamayay xilka madaxweynaha 5 sano ee la soo dhaafayna ahaa siyaasiga ugu mayalka adag uguna weyn mucaaradka Soomaaliya kaasi oo caalamka si weyn looga bartay. Cabdiraxmaan oo dawladii madaxweyne Farmaajo la galay dagaal adag oo qaatay 5 sano iyo dhowr bilood ayaa hadda waxa uu aqbalay inuu ergey gaar ah oo arrimaha abaaraha u qaabilsan Soomaaliya ka noqdo dawladda Xasan Sheekh. waxayna dad badan qabaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu 5 sano ee la soo dhaafay ku dhacay dhiigbax siyaasadeed isagoo ay ka bixeen dhaqaale aad u fara badan. waxayna ku doodayaan dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Cabdiraxmaan ma uusan haysan geed kale oo ku gambado inuu la shaqeysto dawladda Xasan Sheekh ma ahane mana awoodin inuu dagaalkiisa ku sii jiro. dhinaca kalena Somaliland oo ah jamhuuriyad ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale 30 sanana haysatay nabad iyo xasilooni siyaasadeed iyo dimuqraadiyad ayaa waxaa hadda ka jira dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka. waxaana asbuucyadan ka taagnaa khilaaf weyn oo u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka ah iyo xisbiga talada Somaliland haya ee uu hogaamiyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi. waxayna salka ku haysaa arrimaha doorashooyinka oo dhawaan la filayo in Somaliland ay u dareerto doorashada madaxweynaha. xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa waxay ku doodayaan in madaxweyne Biixi uu rabo inuu furo ururada siyaasadda uuna qaato 2 sano oo muddo kororsi ah. waxaana arrintaas si xoog looga biyadiiday oo ka soo horjeeda hogaamiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo hogaamiyaha xisbiga Uxud Faysal Cali Waraabe. waxayna maalmihii la soo dhaafay ku hanjabeen inay qaadi doonaan tillaabooyin waaweyn. dhinaca kalena madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa dhinaciisa waxaa ka socda dadaalo aad u xoog badan isagoo oo kala diray guddigii doorashooyinka. waxa uuna asbuucyadan ku guuleystay dhowr tillaabo oo mucaaradka Somaliland diidanayeen. waxaana laga yaabaa Muuse oo hadda helay dardar iyo xoog isagoo ku dhaqan galin karo tillaabooyinkiisa inuu ku guuleysto inuu doorashadaasi dib u dhigo qaatana 2 sano oo muddo kororsi ah isagoo oo furfuraya ururo siyaasadeed oo ku qabsan doona Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe shacabka faraha badan leh ay tuurta ku sitaan. waxaana laga yaabaa inay Somaliland gasho khilaaf siyaasadeed oo xoogan. inkastoo ay Somaliland leedahay guurti iyo dad waxgarad ah oo kala saara markii ay isku qabtaan arrimaha siyaasadda xisbiyada mucaaradka, haddana waxay dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda sheegayaan inay xilligan tahay xiisadu mid weyn oo aad u ballaaran lagana yaabo inuu gacan ka hadal ka dhaco. intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan oo ahayd mid aan ku dulmaranay Soomaaliya iyo Somaliland dhacdooyinka ka taagan xilligan.